inaad lacag ka samayso barta internetka aad bay u fududahay 2024 laakiin haddii aad adiga isku adkayso lacag kama samayn doontid wax kasta oo lagaaga horreeyey oo dadka facaaga ah oo dhigaaga ah ay lacag ka sameeyeen waaqic ahaan in lacag laga samayn karo adigana waa ka samayn karta laakiin waa haddii aad marto dadaalka ay dadkaasi mareen insha allahu tacaala maanta waxaa rabaa saaxiib yaal inaan idinla wadaago saddexda waddo ee ugu fudud oo aan isleeyahay waa kuwa ugu fudud oo internetka qofka hadda bilowga uu lacag kaga samayn karo waxaa macquula waxyaabo badan oo advance ah oo adag inay jiraan laakiin saddexdan waxaan usoo xulay in qof walba oo bilow ah 2024 dhammaadkeeda ama bilowga ama hadda bilaabayaba uu lacag ka samayn karo sidaa daraaddeed muuqaalkan waxaa isleeyahay waa muuqaal aad iyo aad u faa'iido badan saddexdan waa saddexdan soo xulay oo weliba sida ay u kala fudud yihiin ayaan kugu soo horumarinaya sidaa daraaddeed waan aaminsanahay inaad adigana lacag ka samayn doonto insha allahu tacaala marka haddii ay tahay markaa koowaad sida caadigeed fadlan channelka subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka noo like garay aad iyo aad u mahadsantahay yaal wadada koowaad waxaa loo yaqaanaa plugin waa isweydiinaysaa pluginka saaxiib yaal waa in aad website lahaataa ama aad blog lahaataa blogging waa in article aad qortaa barta internetka adigoo articlekaas nooc uu ahaadaba kaga hadlayo niche baad qabsanaysaa ama micnaha qayb gooni ayaad qabsanaysaa haddii ay noqoto sportska haddii ay noqoto caafimaadka haddii ay noqoto xiriirada jacaylka nooca ay noqoto topic ayaad qabsanaysaa topigaas ayaadna xoogga saaraysaa ood artikala ka qoraysaa bartaada website-kana ayaad ku baahinaysaa marka waa isweydiinaysaa talow haddii aan bloginka uu noocaas yahay maxaa layga baahan yahay oo shuruud ah shuruudaha ayaan rabaa marka inaan ayadan kusoo koobo waxaan isleeyahay afar shuruud ayaa ugu macquulsan oo qofka rabo inuu blogging lacag ka sameeyo uu lacagtaas micnaha uu ku kasban karaa shuruudda koowaad waxaa ka mid ah marka koowaadba inaad leedahay website ama blog website ama blogging kulley farqi weyn baa u dhexeeya saan jeclahayna muuqaal hore waa kaga soo hadlay website-ka waa markaa domain name aad iibsato tusaale nuno.com aan aniga leeyahay ayaa jira oon aan waxyaabo qaar aan ku baahiyo website-kaasi domain name aan aniga leeyahay ayaan u iibsaday sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa marka waa maxay website ayuu noqonayaa bloggingna waxaa keliya ka xiga inaad leedahay gmail qof kastoo gmail leh blogging waa free oo furan karaa marka keebaa durba lasoo aqbalayaa iyo keebaan lasoo aqbalayna waxay ku xiran tahay qof walba dadaalkiisa laakiin aniga saan aaminsanahay website qofka leh ayaa ka dadegsiimo badan qofka kale sidaa daraaddeed bloggingka waxa loo yaqaano marka horeba shuruudiisa koowaad waa inaad leedahay website ama blog shuruudda labaad ee lagaaga baahan saaxiib yaal waxaa waaye haddii aad website leedahay ama aad blog leedahay midkoodba aad leedahay waa inaad ugu yaraan 30 article aad ku qortaa dadka qaar waxay sameeyaan in macnaha ay 5 article qoran ama 6 article qoran sidaa daraaddeedna ay codsadaan lacagtii oo ayaga lasoo diido ugu yaraan saaxiib yaal blog waxa lagaaga baahan yahay 30 article inaad ku qorto blogaasna markuu ugu yar yahay waa inuu 3 bilood jira qof waxaad arkaysaa isbuuci hore inuu blog samaysto isbuuca soo socdana lacagta codsada uu jecel yahay laakiin sidaa uma shaqeeyo waxaa loo yaqaana bloginka sidaa daraaddeed waxaad samaysaa saaxiib yaal ugu yaraan 30 article qor blogaaga ha koro 3 bilood ha gaaro website-kaaga sidoo kale ha koro 3 bil ha gaaro markaad intaas 30 article aa qortid stepka ku xigay wuxuu noqonayaa marka inaad u raadiso traffic fiican traffic waxaa la dhahaa booqadayaal dadka qaar waxay isticmaalaan wax loo yaqaano Pinterest oo ah qoraalkooda inay qaadaan aaladda Pinterestiga ay geeyaan dadka qaar waxay sameeyaan inay qoraalkooda qaadaan ay Facebooka ku basta gareeyaan linkigan xagga dhigaan si website-kooda looga soo akhristo dadka qaar waxay sameeyaan linkiya ayay ku wadaagaan maxaa la dhahaye linki ayay ku wadaagaan xogta meesha ka jirta marka dadka isku mid maaha dadka qaar marka waxay sameeyaan website-ka ay geeyaan linki ay xaggaas dhigaan waxayna rabaan in linkooda laga soo akhristo bostiga sidaa daraaddeed nooc walbood adiga ku suuq geyn kartaba ku suuqgey laakiin shuruudda saddexaad waa inaad leed ama traffic fiican aad heshaa haddii aad traffic fiican aad helin way adag tahay in lagu soo aqbalo midda afraad aan isleeyahay markaa saddexdaada kasoo gudubto waa inaad google adsense leedahay si aynu wada ognahay website-ka iyo youtube-ka labada waxa lacagta bixiya waxaa loo yaqaano google adsense haddii marka shuruudihii aad buuxisay oo google adsense aadan lahayn meel lacag lagugu siinaya male marka afarta step waa afarta step ugu muhiimsan inaad aad lagaaga baahan yahay inaad leedahay marka aad rabto inaad samaysato blogging ama website qaabka labaad saaxiib yaal ee lacag internetka ugu samayn karto waan isleeyahay waa ka fudud yahay ama wuxuu la mid yahay kii hore waa inaad leedahay youtube channel saynu wada ognahay qof kasta youtube channel wuu leeyahay qofkaas hadduu leeyahay gmail dhammaanteed gmail waa wada haysanaa oo because haddaadan gmail lahayn muuqaalkaygan ma daawan lahayn sidaa daraaddeed haddii aad gmail leedahay inaad youtube furato waxba kaagama baahna create channel basaa ku dhufanaysaa oo channelkaagii waad furanaysaa marka saaxiib yaal sida la mid ah si bloggingka waxaan isleeyahay ayagana 4 shardi ayaa muhiim ah qofkii raba inuu blogging lacag ka sameeyo shardiga koowaad saaxiib yaal waa inaad youtube leedahay haddii aad gmail leedahay saan soo sheegay youtube waa leedahay marka youtube furo shardiga labaad saaxiib yaal isagana waa inaad gaarsiisaa 1000 subscriber 1000 qofood waa inuu gaaraa
dadka qaar waxay dhahaan 500 baa laga dhigay weli 500 approved maaha oo because haddii 500 aad gaarsi 500 subscriber aad gaarto weli muuqaalka lacag kama samayn karto laakiin waxyaabaha kale ama fiijarada kale ee lacag laga sameeyo ayaa lagu ogolaya saa daraadeed 1000 subscriber waa inaad gaartaa midda saddexaad ee ayadana muhiimka ah saaxiibayaal waa inaad gaartaa wax loo yaqaano 4000 watch hour tan waxaan u malayaa waa lasoo yareeyey oo 3000 baa laga dhigay sidaa daraadeed ama 4000 ba ha ahaato ama 3000 ba ha ahaato waa inaad macnaha 4000 watch hour aad gaartaa watch hourka dadka qaar ayaa views mooda viewska haddii 4000 ku daawato waxba maahan saacadda laguu sheegayo waa 4000 oo saacadood macnaha halka saac 2 saac 3 saac 4 saac caadiga aad taqaanay oo 4000 oo saacad waa marka dadaalka lagaaga baahan yahay waad garan kartaa waa in muuqaalo fiican oo quality leh aad soo gelisaa midda afaraad يعني isleeyahay saddexda shardi waa buuxisay ee lagaaga baahan yahay waxay la mid tahay tii hore bloggingka ama website-ka lagaaga baahnaa waa inaad Google AdSense leedahay si lacagta lagugu bilaabo marka dadka caadiga waxay sameeyaan aan hadda African joognaa sida caadiga marka horeba shuruudan aan bilowna YouTube iyo Facebook way kala duwan yihiin YouTube wuxuu fursad ku siinayaa marka horeba inaad shardiga aad buuxiso kadibna aad qof dibadda jooga aad addresskiisa ku xirato sidaa daraadeed ha isku dhibin address marka horeba shuruudda inaad buuxiso isku dadaal haddaad shuruudda buuxisana qof saaxiibka ama walaalka oo dibadda jooga inaad weynaysa ilama ahan marka farqiga Facebook iyo YouTube-ka u dhaxeeya waa inaad kala garan kartaa marka sidaa daraadeed Google AdSense waa shuruudda afraad ee lagaaga baahan yahay midda saddexaad aan isleeyahay saaxiib lacag internetka waa lagaga samayn karaa iyada fudud maalmahan ayaa aad u soo shaxbaxday waa barta loo yaqaano TikTok aad Afrika ka samaysatay lacag kama samayn kartid oo muuqaaladaada monetization wax la looma furayo sidaa daraadeed marka hore waxaan kugula talinayaa in TikTok-gaaga dibadda laga soo furay hadda waxaa jira TikTok aan aniga leeyahay dibadda ayaa laga soo furay usernamekii passwordka kaliya liisoo diray kadibna aniga halkan ayaan ku isticmaalaa oo qaabkaas ayaa waxaa waaye TikTok-gayga uu yahay sidaa daraadeed marka koowaad shuruudiisa waa in qof dibadda joogo oo kuusoo sameeya shuruudda labaad ee asagana lagaaga baahan yahay waxaa waaye 18 da'da 18 waa inaadan ka yarayn kuley qof kastaa shuruudan buuxinay oo qof 18 ka yar ilama ahan inuu haweysan karo inuu internetka lacag ka sameeyo tan ayadana muhiimka saaxiib inaad ogaato lagaaga baahan waxaa waaye waa in TikTok-gaaga uu gaaro 10,000 oo followers sidaan ognahay TikTok waxyaabaha ugu followers ka badan ee durba la hela ayay ka mid tahay marka durba waad gaarsiin kartaa 10,000 oo followers shuruudda marka saaxiib yaal aan isleeyahay waa yar adag tahay laakiin qofka quality fiican la yimaado uu gaarsiin karo waxaa waaye 30 cisho ee ugu dambeysay waa in 100,000 oo views aad heshaa macnaha shuruudahan waa hal mar haddaad gaarsiiso 5,000 hadday ku daawato xitaa lacagtaada waa helaysaa sidaa daraadeed shuruudahan waa muhiim waa inaad gaarsiisaa waxaana kaloo muhiim ah in TikTok-gaaga uu jiro ugu yaraan 3 bilood haddaad shuruudahan caawa wada gaarsiiso isla caawa lacag laguma furayo marka waxaan rajaynayaa inaad ka boogatay saddexda waddo ee ugu fudud ee internetka lacag kaga samayn karto insha allah muuqaalkan iyo muuqaalka xiga intaan ka gaarayno fadlan channelka subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka noo like garay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu